النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه. The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together صلوات الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه القويم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا ديني وكساب سياي أركان عقد النكاح. نكاح أركان تأولي هاي عقد النكاح وقت جورك لجون تايو شريعة الإسلام كا أركان بيوسف ميسي أو نكاح لجو أساسيو أو أن لجم مارمان إن عقد جامرك لجون تايو إلا هلا أي سكان تايبل. أركان النكاح وحيوقف بسمان إلى شن قيبود ayaa loo qeybiya arkaanta nikaaxa. linikaaxi arkaan khamsa laabudda iijaaduhaa. nikaax waqtiga la guntaayo ee ruuxu marka uu ka soo shaqeeyo muqadamaadkii guurka iyo howlihii guurka ee ruuxii naftiisii ruuxii uu ku aamini lahaa ee mustaqbalka wada qaybsan lahaayeen waa hasaawihii iyo doonistii iyo shareecada islaamku intii ay noo sheegtay dhammaanba uu soo sameeyo markuu arrimi dhammaa ay ka horreeyey soo sugo. marka caqdigii la soo gaadho nikaaxa guurkii shareecada islaamku waxay u samaysay nikaaxa arkaan ka kooban ilaa 5 qaybood oo la rabo in la ilaaliyo buuri si guurkaasi u noqdo guur sugan oo shareecada islaamka uu noqdo qoys islaama oo qoyska islaamka la asaasiyana oo ka mid noqonayo bulshada islaamka ama caalamul islaam bulshada islaamka. arkaantii guurka marka inuu soo daadegno wuxuu qaybsamayaa ilaa 5 qaybood. waxa ugu soo horeynaya azawj, waa in la helaa nin wax guursanaya iyo zawjo isdoortay, laba isdoortay waa in la helaa zawj iyo zawjo. waa in la helaa wali isna mas'uul ka ah gabadha waalidkii dhalay ama haddii waalidkii aanu noolaynba kii aqrabka ah ee walaalkii la dhashay iyo qaybihii kale ee weligu qaybsamayay dhammaanba waa in la helaa oo isna kii saddexaad buu. siiqa jirta oo iyaduna loogu dhawaaqayo oo siiqaduna ay tahay iijaab iyo qabuul. gabadhaydii waan ku guuriyey iyo waan ku guursaday wuxuu ahaa labada iijaab iyo qabuul isdaboolaya. waa in la helaa zawajtuka ibnatii, gabadhaydii heblaaye hebel waan ku guuriyey, iyo ninka oo isna la baashir idhaahda waan guursaday waan qabiltu nikaaxaha, heblaaye hebel guurkeedii waan aqbalay oo siiqadii abuurg. iyo shaahidaan laba markhaati oo islaam ah oo goobta goob jooga abuurg. marka nikaaxa guurku 5 qaybood marka la helo zawjkii iyo zawjadii iyo weligii iyo siiqadii iyo shaahidaan 5 qaybood caqdigii uu sugnaanayaa sida shareecada islaamku dhageysa buur. waxaana loo eegayaa zawjkii oo kale waa inuu yahay ruux ay u bannaantay gabadhan uu guursanayaa miman yaxilu lizawja, gabadhu xalaala waa inay tahay oo aanay ka mid noqonin muxaramaad qaybihii shareecadu islaamku inaga xaaraam yeeshay ee xaggii nasabka xaggii musaaharada intaba waa in ay tahay gabadhu xalaal ah oo aan qaybaha islaamku inaga xaaraam yeelay aanay ka mid noqon buuri. ta kale waa inay noqotaa oo guurku waa inuu ninkani yahay nin mucayan oo la garanayo buuri. ninka wax guursanayaa ee wax loo guurinaya waa inuu hebel oo labada macruuf oo goobta xaadir ku ah ama wakiilkiisa uu fadhiyo goobta. waa inuu guurku u sugnaaday oo cidda wax loo meherinayaa waa in hebel oo mucayan ay tahay, laakiin aan la odhanin nin ka mid ah hawayaan raggaa wada fadhiya nin ka mid aan kuu guuriyey oo iyadu dee taa caqdi kuma ansaxayo. waa in la cayimaa ruuxa guursanaya buuri. ta kale guurkii oo kale ayaynu ku jirnay arkaantiisii waa inuu ninkuni uu ahaadaa xalaal oonu ahayn ruux muxrim ah buuri. ruux xaramkii guda xidhan oo labada caqdigii xaramku u xidhay waa inaanu ahaan
ليس محرما وين أنو روح حج أما عمره حدي ووقت قال حرم كحرنتاي أما حج قال حرته ما بنانا إن الوحجور ستاكو ما بنانا وحنا مجورين كتبالك ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لي في صحيح المسلم عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يغضب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم روح محرم كأي حج حدي الكجرة عمل كي حجك وحنا جورسن كرو وحنا مجورين كرو وحنا مدوري كربون أو يسوون نفتي يسوون مجورسن كرو عيد كلنا وحنا مجورين كرو ما ندوري كرو قبل الله بدأ إنه سيدي هبكي لو دوني جري ودوننا وما بنانا أنت أو عملك حجك كجربون تصل ربنا إلى لنا أركانتا يضل الربو قبل دينا لقرب زوجتنا إن تاي خلوها من موانع النكاح وحي كحرام يلي إن أي قبل دينا نكن جورسو توين عن الجيرين أو أين نكن أي حلال تاي أو نكن أول بدأ جيان أيهين لبا يسوب بنانا الشريعة يسوب بنايسي وحيابي محرمات كان أي كخالي تاي أما وحيابه لبدا قبل اللقو عيبين لهابا وأين يكلم كخالي تاي أو قبل وحيابه يقول كمنعية دمانبا وأين يكف يوداي أو أيتي قبل أقلنتا نكن دورتي أي شريعة وحلاشي بولك زوجتي وأين هين قبل أن يكوتو لبدا يضنا سيديس نيكو أوكالي أنا حج حدن أم محرمات وأين هين أو حج وأين حدنين عمرنا وأين حدنين وأين يتانا قبل لبدا بحوها وقتي حرم كجوجين أو وقتي حرم كأني هين أما أنا حرم حدنين لكن أي هاتا قبل الديار قرودي أما الديارة إن لجوريو أول جيد جوريو بالك أركانتا كي صدق حلو نقولي ولي وأنو جرا نكاح إن أنت مسؤول عندك مسؤول والدك دلي أما ولالك لا شيء أما قاضيك أما ولي السلطان قيبه وليدا وإنه ولي كمده كبدي جوريا أو أجوريو والدك دلي إن أنت أبيه بول ويا رسولك صلى الله عليه وسلم وحكى لي ولي أوكل النبي إنه يسقى عقد النكاح قال لي رسولك لها صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل بولي قولكم ما سقناه أما قولك ما أصحين إلا إن ولي له إن أنت إذا بحية أو إن أنت إنه قولنا أيوه نكن إنه صينا أيوه روح والد بحية ولد بحية وإنه جرا يلا بمرخاته إسلام وإن قوبت لقاها أيوه رسولك لها صلى الله عليه وسلم أو قولك هديك لما أصحين هذا قبل يدون يصبحيسو أو أي ترى ولي أنا هلا يقوليو وحن صح يا مجرو لكن وإلا راعى طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم سيدا حديثك شيء يلا نكاح إلا بولي وشاهد يعلمون قولك ما سقنانا يو أما ما أصحين عقد قاسي إلا إلا هلا ولي قبل مسؤولك أو بحية أو نكن قوريا يلا ما مرخاتيو إسلام أبو siiqadii baad noqonaysa dee ruknigii shanaad oo aynu ku tilmaanay siiqadu iijaab iyo qabuul oo waxay ku ansaxaa luqal carabiya way ku ansaxaysaa luqatul cajamiya way ku ansaxaysaa haddii aanu ruuxani carabi ahayn luqal carabi aanu garanaynin wuxuu labada ku qowlayaa qowlkii uu fahmayey oo uu leeyahay labada heblaaye hebel oo inantaydii ah weligii wuxuu leeyahay waan kuu guuriyey isna waa inuu yidhaahdaa anna heblaaye hebel waan aqbalay guurkeeda bul oo aan loo sii kala dhexaysiinin sheeko iyo haasaabo kale adduunye ah laakiin iijaab iyo qabuulkii waa inay iswaafaqaan oo markuu yidhahdo heblaaye hebel waan kuu guuriyey isna waa inuu yidhaahdaa ninkii heblaaye hebel waan aqbalay guurkeeda oo iijaab iyo qabuulka waa in la helaa buuri taasaan isku baraarujinaynaa caqdiga nikaaxa shareecada islaamka waa inaan ku baraarugnaa oo inaan fahamno xaqiiq ahaan waa mid laga maarmaana haddii si arkaantaasi ay wax dhiman yihiin oo arkaantaas shanta ah qayb la waayo runtii waxay noqonaysaa caqdigaasi caqdi baadil ayuu noqonayaa ama gabadhii weli la-aanba haddii la guuriyo oon weligeedii loo miidaandayin layska mehersado uun weligaas caqdigaas runtii ma ahaanayo caqdi ansaxa buuri waayo weliyadu qaybay leeyihiin waalidkiibaa ugu horreeya nidhi ilmaha dhalay oo labada mas-uulka ah ayaa labada ugu munaasabsan aabbihii dhalay waxaa kaloo soo gelaya hadduu geeriyooday waalidkii oo kale walaalkii la dhashay ama awowgii oo kale ayaa goobtiisna soo muxuuha fadhiisanaya haddiiba goobta aanu jirin wax la dhashayna waalidkii inuu geeriyoodayna qaadigii magaalada islaamka ee mas-uulka ahaa ayaysan soo gelaya
marka xaqiiq ahaan weliguna qaybuu yeelanayaa kala muhiima oo labada soo kala muhiimsan oo soo kala muhiimsan yihiin loo raacay buu taasana dabada isku baraarujinaynaa guurka oo ka mid ah shayada shacairul islaam shacairta islaamka oo aan laga maarmi karin ruuxa markuu ilaahay siiyo caafimaad qab noloshiisu ay dhammaystiran tahay caafimaadkiisu dhammaystiran yahay deeqna ilaahay uu siiyey oo uu ku guursan karo sidii rasuulku tilmaamayay sallallahu alayhi wasallam ruuxii karayaa isagoo daada xoog kale nabigu la hadlayay sallallahu alayhi wasallam guurku qaybihiisa ama ashqaas u baahnaa wakii rasuulku laa ha guursado oo guurku ayaa ugu munaasabsan inuu indhihiina asturo farjigiina asturee buu taasna isku baraarujinaynaa da'yarta dhammaanba in guurka loo dadaalana diiniyan waanu isfaraynaa oo guurku wuxuu ka badbaadiyaa ruuxa inuu ku dhaco muxaramaad waxyaabaha xaaraama inuu ku dhaco ama nasabkii iyo ubadkii in ay labada ku dhacaan meel aan munaasabayn baa laga digayaa saasuu dee rasuulku inoo tilmaamay sallallahu alayhi wasallam guurka wakhtiga aad guursanayso waa inaad u meel daydaa gabadh zawjo saalixa ah oo ilaahay casa wajal aad ka rajaynayso in awlaad saalix iyaduna ay ku dhasho waayo guurka faa'iidooyinkiisa waaweyn waxaa ka mid anu nidhi ruuxa naftiisu deganaansho ayuu helayaa oo ruuxaasi naftiisii way ku deganaanaysaa maadaama uu muraadkii uu doonayay uu helay waxaa kaloo faa'iidooyinkii guurkeenna ka mid noqonaya in ilaahay casa wajalla deeqdiisa ballaadhan markuu awlaad uu siiyo awlaaddaasi baari markay noqdaan baarigaasi uu tilmaamayo inuu anfacayo waalidiinta dhalay aabbihii hooyadaba nolosha adduunyada guudkeeda iyo marka ay ka socdaalaan adduunyada mabul waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo noo tilmaamayay waladka saalixa ah iyo faa'iidooyinkiisa waaweyn ayuu rasuulku lahaa sallallahu alayhi wasallam ibni aadam hadduu geeriyoodo camaladooda waa la xidhaa ilaa 3 qaybood buu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam camalkiisii lama xidhaayo ee markuu noolaa oo kale sidii loogu qorayo khayraadka ayaa iminkana loogu qorayaa isagoo adduunyadii ka tegay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoogu yidhi waladu saalix walad saalixa ruuxa ilaahay ka beeraa ee adduunyada ama inan ha noqdo waladkaas saalixa oo u soo ducaynaya labadiisii waalid inta adduunyada uu joogo camalkii waalidkaa dhalay ilmaha waladkaas saalixa camalkiisii ma xidhnaanayo ee waa u soconayaa khayraadka iyo wanaagga uu falayo waladka saalixa ama inantaasi waladada saalixadda waxaa kaloo dee rasuulku lah sallallahu alayhi wasallam sadaqatun jaariya ruuxa sameeya wax islaamku ku intifaaco sida ceel ummaddu ay ka cabto biyaha oo labada waqfi ah ama bayt ilaahay lagu caabudo oo waajibaadka alla daacada ilaahay iyo digriga ilaahay lagu xuso ruuxa sadaqa jaariya ah ka taga ama buyuud ay seexdaan duyuufka martida muslimiinta dadka islaamka aan guryo ku lahayn madiinooyinka ee dayfkii meel ay seexdaan guryo waqfi ninkii sameeya sadaqatun jaariyana camalkiisa lama xidhu lahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaa ka saddexaad noqonaya oo cilmun yuntafacu bihi inuu ruuxii diinta iyo xaqa ilaahay inuu barto kitaabkii ilaahay munazalka ah iyo xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo axkaamtii islaamka diintii uu bartay ayuu dadkiina ku faafiyey oo xaqiibuu dadka sii gaadhsiiyey walow aayad keliyana ha noqotee cilmiga iyo diinta uu faafiyey xaqa uu faafiyeyna isna wuu ku intifaacayaa oo camalkiisa lama xidhayo buuri marka dhammaanteen waxaan isku baraarujinaynaa guurka oo ka mid ah nolosha bani aadamka qaybaha u qaalisan waa in loo dadaalaa runtii oo ruux kasta oo ilaahay deeq siiyey ilaahay karsiiyeyna aanu ka gaabinin maadaama waqtigu inagu socdo oo ruuxu labada ay noqonayso adigoo maanta ruux yar ahaa berri ka maalin noqonaya shay ama ruux weyn oo da-oobay ayaan isku baraarujinayn u dadaalo inta labada xoogga iyo daayaridu ay jirtaan amuuraheenna dhammaan khayr allah ka yeelo wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه